kulantiin wacan oo wanaagsan aqyaarta inaga daawataa janaalka tusmada fiilmada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkeena update kale xiiso leh marka la soo kordhay kuwaas oo aan alaaba in la soo wadaagno waxyaabaha kale xiiso leh marka la soo kordhay kuwaas oo saddexdan daawadayaasha marka waa la wadaagi kartiin oo la xiriir xanta jalayaasha fiilmada soo bax qorshooyinka fiilmada hadaba habeen wanaagsan ay hawadeedin kalena warbixintana kale soo kororto waxaan ku eegi doonaa jilaaga Sanjay Dutt ayaa markaan waxa la sheegay in uu laadar ka noqon doono filimka Harry Berry 4 kaas oo filmkaasi hogaamiyeen Akshay Kumar jilaaga kale Paresh Rawal iyo Sunil Shetty filimka aad kala wada suglaya ee Harry Berry kaas oo sidoo kalena maalmo ka hor ay bilaawday shaqadiisa filimkan ayaa wuxuu yahay filim markale isku keenay jilaayaasha Akshay Kumar Sunil Shetty iyo Paresh Rawal waxaa sidoo kale filimkan uu yahay mid markaan sheegay in filimkaas lagu soo doori doono Sanjay Dutt kaas oo qayb ka ahaan doona filimka Harry Berry 4 waxaana soo kale jirta kala hore in Anis Basmi kaas directorka filimka ahaa la oo iskaga baxay soo kale filimkaas waxa lagu soo daray Farhad Samji kaas oo ka naqanaya filimkaasi director markaan ayaa sidoo kale waxa la sheegay in filimkaas xiiso loo yeelay kadib markii lagu soo daray jilaaga Sanjay Dutt sida ay qortay shabakada boolida Hangama ayaa waxa la sheegay in Sanjay Dutt uu yahay midkan doorkiisa filimkan oo ka noqon doono doorka xumaanta ee filimkaasi waxaa soo kale qolada filimku dhaw sheegeen in Sanjay Dutt markaan oo saxiixda filimkaasi soo kale waxa la sheegay in doorkiisu yahay doorka xumaanta filimkaasi soo kalena waxa la sheegay directorkiisa inuu yahay laadar oo soo kale indhool ah waxaana soo kale sheegay in filimkan uu yahay mid xiisiisa kor u soo kordhin doona hadii lagu soo daro jilaagan Sanjay Dutt ayaa wuxuu yahay mid la sheegay in ay alaba filmihiisa kuwa ay shactirada naqdaan ku hid waana jilaa ku fiicnaa la sheegay qaybta shactirada saas la ajligeeda ayaa waxa lagu soo daray filimkan inuu ku noqdo mid doorkiisu yahay mid indhala soo kalena laadarka filimkaasi ka soo kale warar kale waxay sheegayaan in filimkaasi lagu soo door doono jilaaga kale ee Arshad Warsi kaas oo Sanjay Dutt iskala soo muuqda filimka Lagraho Manabai waxaana soo kale markaan ay qurxinaysa doorarka filimka Raju Akshay Kumar Shyam Sunil Shetty iyo kale Baburo Kambatrow Apte Paresh Rawal markaan ay wararka saddex run noqdaan waxay noqonaysaa in Sanjay Dutt filimkaas xiisiisa kor u qaaday asagoo soo kale filimkan lagu arki doono inuu cadar uu ka dhigo Sanjay Dutt oo alaba doorarkaasi ka soo baxsada dhinaca kale waxaan isla eegi doonaa filimka Ranbir Kapoor iyo sidoo kale atirishada kale Shraddha Kapoor oo ku midoobeen Tujote Makar waxa la sheegay maalinta hooliga la sheegay in hal maalin laga soo hormarin doono qolada filimkaasi ku dhawaaya markaan waxay xaqiijiyeen in filimka Shraddha Kapoor iyo sidoo kale jilaaga Ranbir Kapoor ee filimka Jote Makar la sheegay in laga filanayo in marka la daawado maalin ka hor maalintii la qorsheeyo filimkan ayaa kala hore qolada filimka u dhaw waxay sheegeen in filimkan la qorsheeyay in la daawado 8 Maarso asaada filimkan waxa la sheegay in hal maalin laga soo hormarin doono waxaana sidoo kale sheegay filimkan in tiyaatar la saar doono Talaadada kaas oo ku beegan Maarso 7 qolada filimku dhaw waxay sheegeen in maalinta hooliga ka hor ay tahay mid in filimkaas tiyaatar la saaro si dadka maalinta fasaxa hooliga ee maalinta labaad filimkaas u tahay oo arkaan in filimkaas dadka ku soo xoomi karaan soo kale ganacsi fiican filimkaas laga heli karo waxaan soo kale qolada intaas sii raaciyeen in go'aanka uu yahay mid la qaadan doono muddo maalmaha soo socda hadii filimka laga soo hormarin doono maalinta Talaadada 7 Maarso la daawan doono ama in lagu sii dhaaf doono in 8 Maarso tiyaatarada oo la saaro asaatay filimkan loo arkaa in macaash fiican laga heli karo hadii maalintiisa filimkaasi laga soo hormariyo waxa soo kale filimada hooliga lagu soo fasaxay waxay yihiin filma ugu dambeeyeen filimada 10 sano ka hor sida Shahrukh filimkiisa Jab Harme Sijal kaas oo isku dhaceen filimka Ajay Devgan ee Son of Sardar kaas oo 12 soo kala daawada ee la soo fasaxay waaga daawad inta aan ku soo koobina muuqaalada warbixintan aan ku qaada dhigayna update kale xiiso leh marka la soo kordhay kuwaas oo isdhaana ala bixiso leeyihiin oo la wadaagi kartiin daawadaashana ku taxan barta tusmada filimada hadii warbixinaha ka shaleega noo saar soo kala saxaabtiin la wadaaga wad kuma santiin Allah sabab muuqaalada oo daawatan kan kiisa xigana nabad galiyo